Markaan adduunyadan si guud u fiiriyay, waxaa iiga soo dhex baxay 5 shay oo aan filayo dhammaanteenba in ay nolosheena ka dhigi karaan mid tayo sare leh. Midda koowaad waxay tahay adduun waxaan ku noolnahay dadka qiimaha leh, aan micno loo yeelin. Kuwa micnaha loo yeelayna aysan qiimo lahayn. Midda labaad waxay tahay qof intuu istaaga aaskaaga odhanaya baabuur iyo kaba qurux badan oo qaali ah ayuu hebel lahaan jira ma jiro. Noloshaada ha ka dhigin mid waqtigeeda ku lumisa alaabta adduunyo. Midda saddexaad waxay tahay cidna ha ku eedaynin waxa ka dhacaya noloshaada. Dadka wanaagsan ku soo dhaweey noloshaada maxaa yeelay farxad ayay kugu soo kordhinayaan. Kuwa xunna ha dheerayn maxaa yeelay casharaad ka baranaysaa. Labada qodob ee ugu dambaysa 4 iyo 5 waxay yihiin labada qeexda qofka shakhsiyadiisa waa dulqaadka uu ku qaabilo marka uusan waxba haysan oo duruufaha adduunka ay dhulka ku jiidaan, iyo dabciga uu ku qaabilo oo uu ku wajaho dadka marka uu wax walba haysto oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka siiyay noloshan adduunyo.